Australia waxay hoy u tahay geela adduunka ugu badan ee duurjoogta ah. Waxa ugu horeyn geelan Australia keenay sahmiyaal hore si ay uga caawiyaan sahminta iyo gaaridda dhulka bartamaha ee galbeedka Australia. ilaa gaadiidka matoorka ah la wareego shaqadii safarka 1930. kadib waxaa si tartiib ah dalka ugu faafay geelan duurjoogta ah isaga oo si tarmaya. ma ahan geel la ilaaliyo ama la raaco, balse waa mid ka mid ah xayawaanada duurjoogta ah ee deegaansada qaaradda Australia. dhulka hawdka ah ee qaaraddan Australia waxaa laga heli karaa in ka badan 500,000 geel duurjoog ah. neefkii geela ahaa ay ugu horreeyay ee yimaada Australia waxaa laga soo dejiyay dekedda Adelaide 1840 kaasoo watay sahmiyihii koonfurta Australia John Ainsworth. waxaana ujeedkiisu ahaa inuu uga faa'iideysto sahminta dhulka gudaha oo manaha ah ee u dhow harada Torrens ee qaaradda Australia. geelan Australia ayaa asal ahaan ka soo jeeda wadamada Carabta iyo sidoo kale qaar ka mid ah wadamada Geeska Afrika. waana mid hadda la qabsaday deegaankan cidlada ah ee qaaradda Australia. waa mid ka mid ah malaayiin neefaf geel ah ku kala nool daafaha caalamka, balse waa mid kaga duwan inuu yahay geel duurka ku nool oo aanay jirin cid gaar u leh ama daryeesha xayawaankan duurjoogta ah. waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah xayawaanada duurjoogta ah ee qaaradda Australia. waa mid muddo badan noolaan kara isaga oo ka faa'iideysanaya baadka iyo biyaha dhex yaala dhulka cidlada ah ee Australia. ma jiro xayawaan ugaarsada geelan faraha badan ee ku dhaqan deegaankan, taas ayaana keentay inuu ugu bato dhulka kaynta ah ee qaaradda. hilibka geelu waa mid lagu farsameeyo warshado waaweyn oo ku yaala caalamka. geela ayaa si toos ah loo dhoofiyaa wadamo badan oo ka mid yahay Sacuudiga. si la mid ah geela ayaa soo saara caano badan oo laga isticmaalo meelo adduunka ka mid ah. waxaa jira sidoo kale tartamada geela kuwaasoo lagu bixiyo abaalmarino lacageed oo qaali ah. marka la joogo qaaradda Australia, geelu waa mid ka qayb qaata dalxiiska iyo madadaalada dalka. geelan laba korislaha ah ee qaaradda Australia waa mid xiise gelinaya indhaha dalxiisyaalka kala yimid daafaha caalamka.